إيش الصومالي مهما كان لهم براني قبيل كلا markaan u jeesto marka ilmaha guryaheena jooga ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteeda ha ogaadaano waxa aynu doonayno yaa Ilaahayna siinaya waxa weeye runtii kii ka been sheegana waxaan leeyahay been loo baa tahay baan leeyahay waxaan ku leeyahay fikrad cilmi ku dhisan ma aha fikrad khiyaal loola jeedo fikrad beenbeenays loola jeedo fikrad ummadda lagu seexiyo fikrad cadawgooda lagu jabsho ma waxa weeye mid xaqiiqda ama ha macaanato ama kharaarate gacanta loo saaray weey marka inaga ina jirtaa marka inaynu dulli ku noolaanayno iyo inaynu nolol xaq ku noolaanayno inaga ina jirtaa inaynu dhasheena iyo dhalinteenna dhabaha xaqa ku tababarayno si ay bari waddankoodana uga ilaaliyaan cadow naftoodana dulli isticmaar ay uga ilaaliyaan sidaa kaliya ku iman karaysa waxa matal fiican u noqon kara ee maragma doonta ah kuwa kana u noqon kara waxay maanta inaga hooseeyaan ma jiraan waxaan filayaa wixii aan dheeraan karnaa waxa weeye waayo aragnimo inaanu hameeyna badan inagu noolayn ama jirnay iyaguna ay curdan yihiin oo soo socdaaneen inta kaliya inuu dheeraan karnaa laakiin maanta intaan garanayna waa garanayaan sababtu maxaa weeye waxa weeye waa lagu tababaray waa lagu habeeyay waa ay garanayaan tan oo dulli ah iyo tan oo gobonimo ah yaa isu agyaal waana kala garan karaanin dulliga iyo wanaaga sidaa darteed waan ahaan idinku soo jeedinayaa jaalayaal ama ummadda Soomaaliyeed baan ugu soo jeedinayaa guntiga aynu ku adkaysano dhexda walow abaar iyo waxa jiraanin haddana micna kuma fadhido waxa la yiraahdaa nacas hadduu kufo makaco nin ragu hadduu kufo wakaca shacbiga Soomaaliyeed abaar hadday haysto waa inay kacdaa abaarta waa inay ka kacdaa dhibaatada waa inay ka kacdaa waa inay noqotaa ummad isku filan ummad isqaadata ummad iscashata ummad isdaafacda waa inay noqotaa waana inaan kacnaa waxa ina kicin karaa waxa weeye kali ahaan inagoo midayna fikradeenna inagoo aqoonsanna waa lagama maarmaane cadaaladda inagoo tabcanna inagoo ka ilaalina tuugo iyo khiyaano inagoo ka ilaalina intaas baa gundhigu ah salkoodu waka waxaan idin leeyahay intiina ka soo qayb gashay xafladan iid wanaagsan waxaan rajaynayaa iideeda kaleeto kuwii khayr ku iiday waxaan tilmaamanaynana inta u dagaalgalay ku guuleystay inaan noqono waxaan kaleeto u celinayaa madaxda ciidamada asluubta madaxda xarumada macallimiinta muallifiinta qolada tan muusijiinka dhalinta intaba iyagana mar labaad iid wanaagsan iyo hambalyo ee hawsha fiican oo aadna tusteen adinkana waxaan idin rajaynaynaa waxa aad doonaysaan Allah idin siiyo waa mahadsantihiin عافمات قباد كابو عيمسي عقلي توصنو عافمات قباد كابو عيمسي عبرقي تريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كورنيل حابات channel ka daawanaysan waa Cornel Xaabad YouTube waxaan ku leeyahay hadaad ku cusub tahay ama aad ugu cusub tahay ku soo dhawo walaal gacmo furan oo maxaan ku raahdaa walaaltinimo subscribe saar channelka Cornel Xaabad